السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل إيا برنامج كيني ليابك أدونك أو أينو كاكا هذالنو موقالة إيا دعدوينك اللوغو هذا انت بدن يهي براه بلشدة أو آلابات كلا سعوتان channelك انتفاع هاي لابن سبسكرايب سادو لا سعوتو فيديو يضع عسوبين سوقلين دونا إن شاء الله جلاغا عنكها إيه فيلم هذا هوليوود جاكي تشان أما تشيكي تشان أيا ولعوين كموجي مستقبل كانولاد أي ويلو دالي أو عادي ستيك كان عسيكا دروغادا كاسيو دوان سحافة دونيدو وريسي إساقا أولا قبتي دروغا وتهريبيني إساقا ينين كلاو عنكو أكا كان عسيكا دروغادا ودشي وطنكا تايوان oo la hadlayay BBC da qaybteeda Aasiya ayaa sheegay inuu ka warwarsan yahay wiilkiisa Chase Chikijan oo 34 jir ah oo waqtigan xabsiga ku jira kadib markii lagu qabtay daroogo dhawaan ayay ahayd markii wiil uu dhalay jilaaga caanka ee dalka Shiinaha u dhashay ee loo yaqaan Chikijan ama Soomaalidu u taqaan Chikijan loo xiray daroogo loo yaqaan marijuana isagoo ku dhaxaysta gurigiisa oo ku yaala magaalada Beijing Chase Chan oo 34 jir ah iyo nin u dhashay dalka Taiwan oo la yiraahdo Keiko oo 23 jir ah kaasi oo la sheegay inuu ka mid yahay koox dhalinyaro ah oo ka ganacsata labada nin ay ciidamadu ku qabteen daroogo qiimaheeda lagu sheegay $10,000 wiilkan u dhalay jilaaga u dhashay Hong Kong kaasoo caan ku ah filimada dagaalka iyo majaajilada isugu jira sharaf badan ku dhexleh dalalka Shiinaha iyo Mareykanka ay arintani karaamada qoyskiisa waxyeelaysa waxa uu ku tilmaamay in ay tahay dhibaatadii ugu cusleed ee soo wajahda qoyskiisa isagoo sheegay inuu ka xun yahay falkaasi inankiisu ku kacay Chase oo ku koray kuna dhashay dalka Mareykanka laf ahaantiisu waa jilaa isla markaana fanka caan ku ah inkastoo filimadiisu aanay noqon qaar guuleystay ciidamada biliisku waxay xaqiijiyeen lagu qabtay xashadaas markii la baadhay labada jilaa la ogaaday in la fahantoodu ay isticmaalaan kana ganacsanayeen jilaagan daadayar aabihi Chikijan ayaa cadeeyay inaan wax dhaxala siinin wiilkiisa balse maalkiisa ugu deeqi doono dadka baahan si uu inankiisa ugu qasbay inuu tabacada hanti uu isagu iskii u leeyahay